بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. maanta waxaan wadaagi doonaa sheeko yar oo cajiib ah. Sheekadan waxaa la yiraahdaa waa maxay sirta guushu ama sirta baraaraha adduunyada waa maxay. Waxa la xilliyada ka mid ah waa nin ganacsade ah wuxuu inankiisa u diray nin xikmad badan si uu uga soo jawaabo weydiinta ah waa maxay sirta guushu. halka xakiimku degan yahay ama ninka murtida badan leh iyo halka uu odaygan inankiisu joogo waxa u dhaxaysa muddo loo socdo 40 dhalaarood. inankii weysadii buu soo biyeystay, sibraarkii uu sahay ku soo qaatay, uu soo amabaxay. wuxuu yimi halkii loogu soo tilmaamay ninka xikmadda badan leh. waxa loo sheegay dabeeta xakiimku inuu buur dusheeda degan yahay. buurtii buu fantay, raftay. buurtii dusheedii markuu gaaray baa wuxuu arkay ninka murtida badan leh xakiimku inuu degan yahay guri weyn oo qurux badan. uu soo galay wuxuu arkay dad badan oo sugaya ninka xikmadda badan leh. wuxuu ka mid noqday dadkii sugayay. waxay ku qaadatay muddo 3 saacadood inuu sugo ninka murtida badan leh si uu uga shaafiyo weydiinta ku taagan ee ah waa maxay sirta liibaantu. dadkii sidoo qof kale u kacay isna uu soo durkayay waxay soo gaadhay markiisii isaga. xakiimkii buu galay wuxuu waxaan doonayaa inaad iga jawaabto weydiin ah waa maxay sirta liibaantu. wuxuu waa si wanaagsan oo kaaga jawaabaya laakiin imka hawl baan hayaa. guriga intaan kaaga jawaabayay aynu ka kulmayno waxaad samaysaa malqacadan hoo 2 dhibcood oo saliid ugu shubay. wuxuu yiri intaanu ka kulmayno aan hawsheeda ka soo dhamaysanayo soo warwareeg. way buu yiri saliid uu hayaa 2 sendhood saliida ka jeesan maayaan saas uu la wareegaya markuu kaabada ka degaya yar buu ka degaya kolka uu talaabsanaya wuu siniqsanaya sababta wax ka baqaya in saliidu ka daadato. 2 saac kadib ay ku qaadatay inuu soo warwareego kadib ay kulmeen. wuxuu ku yiri iga waran gurigii aad iyo beertii aad dhex socotay maanta bal quruxdoodii qolka cuntada si jaayadii quruxda badnayd ee faris lagu sameeyay xaalkeeda ka waran wixii madax shabeel iyo libaax iyo wax kale yaalay ka waran. ninka wuxuu ku yiri waxa soo dhan maan eegine wuxuu baan ku dadaalay inaan saliidu iga daadan. odaygii xakiimka wuxuu ku yiri orod ku noqo guriga oo soo daawo oo war sugan iga keen. inanka gurigii wadada ugu noqday wixii ashqaraar iyo indadaalis alaabihii yaalay oo dhan ayuu mid ugu fiirsaday. wuu ku soo noqday wuxuu yiri iga waran wixii guriga qurux yaalay. wixii guriga qurux yaalay halka waxa saayay kale waxa saayay mid buu ugu taxay waxyaabihii ugubka ku ahaa ee quruxda badnaa ee ashqaraarka lahaa ee indhihiisu ay soo qabteen. inankii daldalmaya ayuu odaygu wuxuu ku yiri saliidii aan ku dhiibay ee malqacada ku jirtay meeday saasaabuu eegaysaa wallahi malqacadu waa faaro. wuxuu ku yiri nolosha sacaadadeedu waa sidaa. macnaheedu waa maxay aadamuhu adduunyada inaad quruxdeeda iyo bilicdeeda iyo wirwirkeeda aad daawato wax loo baahan yahay aad kana faa'iideysato laakiin inaad isku ilaabin ee wixii ku dan ahaa aad qabsato. noloshu waa gurigaas iyo malqacadaha 2 dhibcood ee saliid ay ku jiraan. 2 dhibcood saliid waa maxay waa inuu Ilaahay kugu asturo nolosha dhexdeeda oo caafimaad ku siiyay inta aad caafimaad haysato iyo nolol aad wax ku qabsan karto. marka nolosha maxaa laga rabaa mucaadalaatu najaax inaad noloshaada dheelitirto oo dantaada shakhsigaana aad ka soo baxdo ta guud ee kale ee noloshana aad kaalintaada ka qabsato. marka mar walba waa inaad ahaataa qof dheelitiran oo waxa ka maqan yaqaan waxa uu haystana sidoo uga faa'iideysanaya garanaya. ku mahadsantiin inaad sheekada inta ay kooban dhageysataan inoo mar kale.